xiisadda u dhaxaysa labada dawladood ee dariska ah waa Itoobiya iyo dalka Eritrea ayaa markan waxay u muuqataa mid aamusnaanta ka baxaysa dagaal inuu bilowdo ayaana laga cabsi qabaa. labadii maalmood la soo dhaafay waraaqado ku qoran luuqad adag ayay xafiisyada diblomaasiyadeed ee labada dawladood Eritrea iyo Itoobiya ay isweydaarsadeen iyadoo horey ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu eedayn ballaaran u jeediyey madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerqi. hadda beesha caalamka si gaar ah qaramada midoobay waxa ay ku dhawaaqday maanta in la joojiyo xiisadda kacsanaanta ah ee ka soo cusboonaatay labada dawladood iyadoona waraaqadii ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya laba maalmood ka hor la tilmaamay inay cirka ku sii shareertay khilaafaadkii Eritrea iyo Itoobiya u dhaxeeyay. jawaab adag oo wasaaradda warfaafinta dalka Eritrea ka soo baxday ayaa iyaduna waxa ay muujisay in markan Eritrea iyo Itoobiya ay u muuqan karaan in mar kale 22 sano kadib ay ku dagaalamaan xadka u dhaxeeya labada dawladood. dawladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Eritrea waxa ay ku eedeysay inay hub iyo sidoo kale saanad military ay siiso kooxaha ka dhaqdhaqaaqa dalka Itoobiya ee ka soo horjeeda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dawladda uu hogaamiyo. halka Siyaas Afwerqina uu tilmaamay ama warkaasi uu ku sheegay mid been ah oo markaasi sal iyo raatoona aan lahayn. waxayna Eritrea markan ku andacoonaysaa inaysan wax shuqul ku lahayn xiisadda siyaasadeed ee arrimaha gudaha dalka Itoobiya ka jirta. haddaba saaxiibayaal barnaamijkan waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda labada dawladood laga qoray iyadoona warbaahinta caalamiga si gaar ah warbaahinta Reuters ay maanta qorayso in xiisadda u dhaxaysa labada dawladood markaan ay u muuqato inay dagaal markaasi aan laga fursan doonin iyadoona beesha caalamka qaramada midoobay iyo sidoo kale midowga Afrika labaduba ay waraaqado iyo warsaxaafadeed ay soo saareen ay ku tilmaameen in la joojiyo xiisadda sidoo kalena wada hadallada dib la isugu soo laabto. ciidamada Eritrea ayaa la tilmaamayaa inay Tigray ama gobolka Tigray ay ku sugan yihiin inkastoo ilaa iyo hadda cadeymo rasmi aan la haynin marka laga yimaado eedeymaha. warbixinadii ugu dambeeyay ayaan halkan idinkula wadaagayaa. nagu soo biir oo barteena YouTube-ka Magan Media subscribe ku samee sidoo kale muuqaalkan la garay lana si wadaag saaxiibadaasi oo meel leeru gaaro. haddii aad Facebook nagala socotana barteena Facebook-ka Magan Media follow soo samee muuqaalkan saaxiibada u sii gudbi. taariikhdu waxa ay ku beegan tahay talaado 10 bisha February sanada 2026 aynu ku bilownay xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa dawladaha dariska ah ee Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea ayaa maalmihii u dambeysay cirka isku sii shareeraysay iyadoo labadii sano ee u dambeysay markaan dibidiin celiyo ay muujinayeen wararka labada dawladood ay hawada isu marinayaan in mar kale Eritrea iyo sidoo kale dalka Itoobiya ay xadka labada dawladood u dhaxeeya ay ku dagaalami doonaan. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo isbuucaynu soo dhaafnay baarlamaanka dalkiisa hortagay ayaa hadallo ka xanaajiyay ama ka cadhaysiiyey dawladda dalka Eritrea iyo sidoo kale Siyaas Afwerqi ka sheegay baarlamaanka hortiisa. Abiy Ahmed waxa uu tilmaamay in xilligii dawladdiisu ay dagaalka kula jirtay TPLF ay garab weydiisteen ciidamada markaasi ka soo jeeda dalka Eritrea iyagoo uu sidoo kale tilmaamay in ciidamada Eritrea gudaha dalka Itoobiya marka ay soo galeen ay gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Tigray ay ka sameeyeen waxyaabo aan loo dulqaadan karin. waxa uu tilmaamay Abiy Ahmed inay dhalinyarada deegaanka Tigray inta ugu badan ay xasuuq kala kulmeen ciidamada Eritrea ee gobolka soo galay iyagoo markaasi waday buu yiri isirsifayn ay markaasi kula kacayeen shacabka Tigray ee ku sugan gobolkaasi Tigray waqooyiga dalka Itoobiya. Abiy Ahmed dhinaca kale waxa uu Eritrea ku eedeeyay inay gebi ahaanba amsax ay ka dhigeen ama ay burburiyeen warshadihii dhaqaalaha iyo sidoo kale warshadihii waaweynaa ee wax soo saarka badan kulaha ee dalka Itoobiya u lahaa ee ku yaala gudaha deegaanka Tigray. waxa uu tilmaamay in xilligaas dagaalkii Eritrea mar aan ilaa dagaalka TPLF iyo dawladda Abiy Ahmed u dhaxeeyay 2020 ilaa 2022 intii u dhaxaysay socday ay Itoobiya la kulantay xaalad adag oo ciidamada Eritrea markaasi ay u geysanayeen shacabka deegaanka Tigray. Abiy Ahmed arrintan waxa uu tilmaamay inuu marar kala gedsan wafdi ballaaran oo hogaaminayay wasiirkii hore wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkiisa nin lagu magacaabi jiray Gedu oo horena u soo noqday madaxweynaha deegaanka Axmaarada uu dhowr mar oo kala gedsan u diray magaalada Asmara si uu la kulmo Siyaas Afwerqi xaaladda ay ciidamadiisu ka geysanayaan markaas gudaha deegaanka Tigray la joojiyo.
arrintan dowladda Eritrea waa ay ka jawaabtay waxayna tilmaantay inaysan warkaasi sal iyo raatoona uusan lahayn ciidamada Eritrea waxa ay tilmaameen inay kaliya garab siinayeen ciidamada dowladda Ethiopia si gacanta loogu dhigo guud ahaanba gobolkaasi waxayna tilmaameen in cidda ee ka dambeysay xasuuqadii kala gedsanaa ee dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray ka dhacay ay dowladda Abiy Ahmed iyadu dusha ay saaranayso intaas wixii ka dambeeyay waxaa jirtay kacsanaan siyaasadeed oo guud ahaanba labada dal ka dhex taagan iyadoo arrimaha diblomaasiyadda markaas si adag la isugu dagaalayay TPLF ayaa toddobaadkii la soo dhaafay iyaduna waxa ay bilowday dagaalo kala gedsan oo ay ku qaadayso gobolada ama gobolka galbeedka deegaanka Tigray ku yaala gaar ahaan magaalooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin magaalada Humera iyo sidoo kale magaalada lagu magacaabo Tsemnad iyo magaalooyin kale oo markaas gudaha deegaankaas ku yaala gaar ahaan galbeedka deegaanka Tigray halkaas oo ciidamada dowladda Ethiopia iyo sidoo kale maleeshiyada deegaanka Axmaarada ka soo jeeda ay gacanta ku hayaan TPLF ayaa la tilmaamay inay garab xoogan markaan ka helayso ciidamada Eritrea ee ku sugan deegaanka Tigray iyo sidoo kale dowladda uu hogaamiyo Siyaas Afwarqi madaxweynaha dalkaasi Eritrea iyadoo dhinaca kale dowladda Abiy Ahmed ay tilmaantay in aysan doonaynin in mar kale gobolkaasi uu dagaal ka dhaco balse waxaad moodaa in xaaladdu markaan aysan ka fursanaynin in labada dhinac mid uu ku guulaysto waana in dabcan ay noqon karto in lagu dagaalamo gobolkaasi maadaama Tigraygu ay leeyihiin gobolkaasi annaga iskale deegaanka xabashaduna waxa ay leeyihiin hore ayaana looga qaatay gobolkan galbeedka Tigray ku yaala oo ay caasimad u tahay markaasi magaalada Humera iyo sidoo kale magaalooyin waaweyn oo gobolkaasi ku yaala guud ahaanba markii intaasi laga yimaado laba maalmood ka hor wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia waxa ay soo saartay war saxaafadeed si adag u qoran taasoo la tilmaamay in loo diray wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Eritrea Ethiopia waxa ay markaasi ku andacootay in ciidamada Eritrea ay ku sugan yihiin gudaha deegaanka Tigray sidoo kalena ay haystaan dhul dalka Ethiopia uu leeyahay mulkiyadiisa arrintan ayaa loo fasiray inay tahay arrin markaasi keenaysa in xiisaddu ay markaan isu bedesho dagaal Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisu waxay la tilmaamay inay muujinayaan in meeshii ugu dambeysay ay ka taagan tahay ciidamada Eritrea ee ku sugan dalka Ethiopia waxay u qabteen inay muddo kooban markaasi ay kaga baxaan siyaasiyiin ka soo jeeda labada dowladood sidoo kalena falanqeeyayaal arrimaha siyaasadda ee dalka Ethiopia iyo Eritrea falanqeeya oo BBC-da qaybta afka xabashiga la hadlay ayaa maanta waxa ay tilmaameen in marka la fiiriyo warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia ay muujinayso xiisadda markaas u dhaxaysa Ethiopia iyo Eritrea inta ay xajmigeeda ama xooggeeda u leeyahay waxayna tilmaameen in sanadkan 2026 ay adag tahay in nabad uu ugu dhamaado dowladaha Ethiopia iyo Eritrea waxay sidoo kale sheegeen in jawaabaha ka imaanaya Eritrea iyaguna aysan ahayn kuwa markaasi nabad markaas ka shaqeynaya wasaaradda warfaafinta ee dalka Eritrea gaar ahaan ninka lagu magacaabo Yamana Gabra Maskal oo wasaaraddaasi wasiirka xukuumadda Siyaas Afwarqi u ah afhayeen ayaa waxa uu soo saaray war saxaafadeed uu kaga jawaabayo hadallada Ethiopia ka soo yeeray in ciidamada Eritrea ka socdaay ay gudaha deegaanka Tigray iyo sidoo kale galbeedka ama waqooyi galbeed ee dalkaasi Ethiopia ay ku sugan yihiin waxay Eritrea tilmaantay in arrintaasi aysan waxba ka jirin wararka ka imaanaya dalka Ethiopia aysan sal iyo raad lahayn si guudba warbixinadaas marka laga yimaado xiisaddu waxay u muuqataa mid halis ah Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisu waxay sidoo kale tilmaameen inay u baahan yihiin inay helaan marinbadeed ku yaala badda cas si ay uga faa'iidaystaan arrimaha dhaqaalaha iyo sidoo kale arrimaha amniga istiraatiijiyadda Abiy Ahmed maruu baarlamaanka la hadlayay waxa uu si cad u sheegay in isagoo tusaale u soo qaatay sida Israel ay muhiim ugu yihiin ayuu yiri buuraha loo yaqaano Golan Heights oo ku yaala markaasi ama u dhaxeeya Israel ama dhulka la haysto ee Palestine iyo sidoo kale Syria sida ay Israel muhiim ugu yihiin inay buurahaas gacanta ku hayso ay qabsato ayaa waxa Abiy Ahmed tilmaamay in Ethiopia inay bad hesho marinbadeed ku yaala badda casna ay gacanta ku dhigto ay muhiim ugu yihiin taasoo markaasi muujinaysa in dowladda Ethiopia ama Abiy Ahmed ha joogo ama qof kale ha jooga ay muhiim u tahay inay hesho mid ka mid ah dekedaha ama xeebaha ku yaala badda cas Abiy Ahmed waxa uu sidoo kale tilmaamay in Ethiopia ay tahay in ka badan 130 milyan oo qof ay ku nool yihiin dalkeeda waxa uu tilmaamay in 5,000 oo kiiloomitir oo dhar xeeb ah ama bad ah ay haystaan dad uu tilmaamay inay ka yar yihiin 25 milyan oo markaas uu la jeedo dowladaha Eritrea
jabuuti iyo sidoo kale soomaaliya marka la isku daro dadka ku nool waxa uu abiy axmed leeyahay 25 milyan oo qof kama badna halka etoobiya 130 milyan ay sii cagacagaynayso sida uu tilmaamay si guudba xiisaddu cirka ayay isku sii shareeraysaa waxaana muuqata in marba mar ka dambaysa ay ciidamada etoobiya iyo kuwa eritrea ay markaasi ku dagaalami karaan xadka labada dowladood u dhexeeya dhinaca kale TPLF hoggaankeeda gaar ahaan ninkii horey madaxweynaha uga ahaa gobolkaasi oo lagu magacaabo Debretsion Gebremichael war-saxaafadeedu isaguna soo saaray oo uu diray midowda Afrika iyo sidoo kale qaramada midoobay waxa uu ku cadeeyay in dowladda Ethiopia maalmihii la soo dhaafay ay ciidamo aad u tiro badan ay ku daabushay gobolkaasi Tigrayga waxa uu tilmaamay in ciidamada Ethiopia iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay qaateen go'aan ah in si xoog ah lagu soo celiyo xaaladda iyo gacan ku haynta gobolkaasi Abiy Ahmed waxa uu doonayaa in doorashada toddobaad ee bisha June lagu wado inay ka dhacdo dalka Ethiopia inuu ka qabto deegaanka Tigrayga maamulo ama magaalooyin ka mid ah halka TPLF hoggaankeeduna ay hore u sheegeen in wax doorasho aysan ka dhici doonin ee markaasi guud ahaanba gobolka ama deegaanka Tigrayga inta laga maqan yahay ay tilmaameen heshiiskii Pretoria ka dhacay 2022 kaasoo colaadii gobolkaasi ka dhacday lagu soo afjaray si guudba xaaladdu waxa ay u muuqataa inay markan ka duwan tahay siyaabihii hore ahayd waxayna falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika si gaar ah kuwa la socda xaaladda dalka Ethiopia iyo sidoo kale Eritrea ay leeyihiin waa lagama huraan sida hadda ay wax u muuqdaan inuu dagaal ka dhaco labada dowladood Abiy Ahmed ayaana la tilmaamayaa markan inuu doonayo inuu gacanta ku dhigo mar guud ahaanba markaasi dekad ku taala badacas sidoo kalena gobolka Tigrayga uu gacanta ku dhigo hadii uu doonayo markaasi inuu xukunka waqti badan u sii joogo nin lagu magacaabo Dr. Negere Gudeta oo ku takhasusay arrimaha xiriirka Ethiopia iyo sidoo kale Eritrea oo hadda ku nool dalka Jarmalka ayaa waxa uu sheegay in warqadii ka soo baxday xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia taas oo ay u dirtay Asmara ay muujinayso in Ethiopia ay gaartay gunaanad inay si gunaanada u gaartay inay Eritrea ay ku lug leedahay colaadaha ka socda guud ahaanba gobolka Tigrayga iyo sidoo kale jabhadaha ka dhaqdhaqaaqa dalka Ethiopia waxa la soo wariyay in toddobaadyo ka hor dagaalo ay ka dhaceen xuduudda u dhaxaysa gobolada Tigrayga Axmaarada iyo Canfarta gaar ahaan meelaha ay isku haystaan Tigrayga iyo Axmaarada kuwaasoo lagu kala magacaabo magaalooyinka Salamti iyo sidoo kale Magale iyo waliba magaalada kale ee lagu magacaabo Abaala waxaana la sheegay in ciidamada Tigraygu ay dagaal la galeen ciidamada dowladda Ethiopia iyo sidoo kale maleeshiyaad ka tirsan kuwa Axmaarada falanqeeye Dr. Negera waxa uu sheegay in qiimeynta ay Eritrea ku lug leedahay ama qiimeynta ah buu yiri inay Eritrea ku lug leedahay dagaalada ay keenayso in dowladda Ethiopia markaasi ay dagaal ku qaado ciidamada Eritrea ee xadka ku sugan waxa uu xusay in dagaalka ama hadallada iyo sidoo kale aflagaadada u dhaxaysa labada dal uu socday ku dhawaad 2 sano balse hadda uu marayo meel heer sare ah sabab la xiriirsan buu yiri rumaysta ama inay Ethiopia rumaysan tahay in Eritrea ay door ku leedahay colaadaha dalkeeda ka socda arrimahaas waxa uu leeyahay waxa ay muujinayaan in dowladda Ethiopia markan ay og tahay in Eritrea ay qayb la xal oo muhiim ah ay kala ama ay ka ciyaarayso xaaladda dalka Ethiopia uu xilligan ku jiro waxa muuqata dhinaca kale in la isdiyaarisku uu socdo jabhadaha dalka Ethiopia ka dhaqdhaqaaqa waxa la leeyahay waxay isu diyaarinayaan dagaalo ay Abiy Ahmed iyo ciidamadiisa kala hortagaan halka dowladda Eritrea lagu eedeynayo inay saameyn ballaaran ku leedahay xasaasiinta iyo saanada military inay ka taageerto guud ahaanba dhinacyada kala gedsan ee Ethiopia iyo dowladda mucaarad ku ah TPLF waan dacoonaysaa waxa ayna leeyihiin ciidamada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waa ay nagu soo duuleen waxaana maalmihii la soo dhaafay ay tilmaamayaan in markaasi si adag ay ciidamada Ethiopia loogu daabulayo gobolkaasi sida warbixinada ay TPLF soo saarayso ay tilmaamayaan waxa dhinaca kale barbar socda in gobolka Walqayd oo markaasi galbeedka deegaanka Tigrayga ku yaala xadna la wadaaga kan Axmaarada in la isku haysto oo TPLF iyo hoggaankeeda gobolka Tigraygu ay isku dhaarsadeen in gobolkaasi mar kale gacanta deegaanka Tigrayga dib loogu soo celiyo sidoo kalena maamulka deegaanka Axmaarada iyo jabhadaha ka dhaqdhaqaaqa gobolkaasina waxa ay sheeganayaan inay gacan ku haynta gobolkaasi ay sii haysan doonaan sidoo kalena gobolkaasi iyagu ay hore u lahaayeen waana waxyaabo keeni kara in dagaal uu mar kale gobolkaasi ka dhaco xiisaddu waa iska culus tahay
Eritrea iyo Ethiopiana waxa ay isku fiirinayaan diirad iyagoo midba midka kale uu ku eedeynayo in markaasi uu ka shaqeynayo sidii labada dhinac uu dagaal u dhex mari lahaa arrintan ayaana la tilmaamayaa inay keenayso in xiisaddu ay markaan cirka isku sii shareerto Abiy Ahmed kama garaabaya ayaa la leeyahay waxa dhacaya sidoo kalena Siyaas Safarqi madaxweynaha dalka Eritrea isaga laftirkiisu waxa la tilmaamayaa inuu u diyaar garoobayo dagaal kasta oo markaas dhinaca Ethiopia uga yimaada sida la tilmaamay waxaana la sheegayaa dhinaca kale in qayb Eritrea ay ka tahay hubeynta kooxaha kala gedsan ee dalkaas Ethiopia ka dhaqdhaqaaqa warkii jiraba waa la ogaan doonaa intaas ayaa saaxiibayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijkeenan aan ku kormeeraynay xaaladda dalka Ethiopia iyo Eritrea xiisadda markaas ka soo cusboonaatay deegaanka Tigreega TPLF iyo wararkii ugu dambeeyay ee warbaahinta caalamku ay maanta ka qorayaan guud ahaanba xiisadda labada dawladood u dhaxaysa nagu soo bir oo barteena Magan Media ee YouTube-ka subscribe ku samee muuqaalkan la garay lana si wadaag saaxiibada si uu meel dheer u gaaro Facebook haddaad nagala socotana na soo follow garee si aanu markaasi daawasho badan muuqaalkeenu u gaaro lana si wadaag saaxiibadaada kugu xiran si iyaguna ay ula socdaan warbixinadii ugu dambeeyay subscribe iyo followga hala taabto page-ka iyo sidoo kale YouTube-ka intaa kulmi doona barnaamijkeena xiga waanu Cabdiqaadir Maxamed oo leh nabadgelyo